maamulka gobolka Sool oo hogaaminaya gudoomiyaha gobolka Sool taliyaha qaybta Booliska ee gobolka Sool taliyaha xigeenka qaybta 7aad ee ciidanka qaranka ee gobolka Sool iyo waliba isduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ayaa amar ka soo saaray ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta gobolka Sool waxaana gacanta ku soo dhigeen harimacad si sharci darro loo watay ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyay harimacadka ay soo qabteen isagoo wasaaradda deegaanku ay kaashanayso ciidanka booliska iyo waliba ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Sool isduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga mudane Jaamac Maxamuud Xaaji Saalax oo isagu sheegay in loo baahan yahay in la daryeelo deegaanka iyo duurjoogta halka waxaan ku haynaa harimacad ay soo qabsadeen dadkaasoo aanu markaan warkooda helay muddo 5 casha ilaa 4 casha baan ku raad joognay maanta aan ku guuleysanay annagoo wadana ciidanka booliska ay gacan siinayaan iyo gudoomiyaha gobolka Sool marka maanta waxaan ku guuleysanay inaan soo qabanno dadkii watay harimacadkiiba halkan aan ku haynaa ma qaanu diray hadaba bulshada ku hawlan waxa weeye waa madnuuc ugaadha iyo duurjoogta in la dilo la qasho la iibiyo jirkooda laga ganacsado haragooda laga ganacsado geeskooda laga ganacsado midnaba waxa weeye intuba waa mamnuuc cidii lagu qabto waxay ku mutaysanaysaa maxkamad xarig iyo ganaax aan ka yarayn 10 milyan iyo 3 sano xariga ugu yar qofkii lagu qabto harimcad ama deero kii dila dhurwaa lama dili karo dawaaco lama dili karo sidoo kale waxaan kan baaq uga diraya kuwa ku hawlan dhirta jaraya iyaguna sidaas si lamida kiis lamida qofkii geed qoyan gooyay wuxuu ka dhigay qof naf gooyay sidaa daraadeed waxa weeye wasaaraddu iyo dawladda Soomaaliland labaduba sharci ka soo saareen waxa weeye cid kasta oo lagu qabto arrimahaasi waxa weeye xarig bay mutaysanaysaa gabadhiina gudoomiyaha gobolka Sool mudane Cabdirashiid Xuseen Cabdulla Gargaar ayaa dhankiisa sheegay in duurjoogta ay ka mid tahay hantida ay dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland u leeyahay gaar ahaan gobolka Sool waxaana uga digay bulshada ku dhaqan guud ahaanba gobolka Sool gaar ahaan dadka reer guuraaga inay joojiyaan sida sharci darrada ay u gaarsanayaan duurjoogta iyo isduwaha iyo ciidamada booliska iyo military kala duwan aad bay mahadsan waa sida uu sheegay isduwaha sharci ba ka yaala duurjoogta iyo dhirta iyo deegaanka nooc ay u yihiin ba inaga u baahan inaga ku nool oo muhiimadii dalka iyo dadku lahaa in la ilaaliyo in ciqaabta la mariyaana waa waajib hadii dadku ay ku qaadaan sharciga hoggaansan in ciqaabta la mariyaa bahalkan la soo qabtay saaka yar oo arkay in la rabeeyo isagana hala daryeelo sidii meeshii loogu celin lahaa ama cid kale oo gacanta ku hayso wasaaradda loogu wareejin lahaa aad iyo aad ciidankii wasaaraddu u mahadsan yihiin arintaas saas ka qabna in sharciga la waafajiyo hana la doono hana la keeno qofkii soo xiro sharciga la waafajiyo bahalkii keenay ee ka ganacsanay aad baad u mahadsantii وبرخد عمر أحمد البانتا دولة جمهورية الصوماليلاند لا سعنات